بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa maanta inaan halkan ka soo jeediyo mowduuc ku saabsan arrimaha bulshada qaas ahaan dhalinyarada. Mowduucan waxaan uga hadlayaa waayahan waxaa soo batay meediyaha ama waxa la yiraahdo internetka, dhibaatooyinka iyo saameynta uu leeyahay oo ay ku soo dhinaca dhalinyarada ah. Walaalayaal, waxaan sheeka hadda ka hor idinkugu soo gudbiyey cunug yar oo 10 jir ah oo habeen kasta mare la huuda telefoon weyn. Waxaan u maleynayaa dadkii sheekadaas akhristay waa alxamdulillaah. Waxaan hadda wagaas intaas ka dambaysa waxaan si fiican xooga u saaray in aan dhalinyarta fiiriyo dhaqankooda xagga telefoonada markay fiirsanayaan ama actionkooda ama aan hadda ka bacdi xooga waxaan ku talagalay inaan xooga saaro. Maalmaha kamida ayaan waxaa nin dhalinyaro oo markaas 20 iyo dhowr jira oo ilaa meel aan ka wada markaas shaqo u wada nimid oo subax kasta markuu soo fadhiisto meesha waxba lama hayo, dadku iska wada baagmoodo. Markuu meesha soo fadhiisto wuxuu suubiyaa telefoonku qabsadaa, labada lugood hoosteedu geliyaa. Telefoonka dadka kale telefoonada haystaa way iska sheekeynayaan, telefoonka waa dhuganayaan, miis korkiisa u saaran yahay, waxbay ku baraati gareynayaan, waxbay ku sameynayaan. asagu wuxuu sameeyaa hoos buu inta ula hoodo labada lugood oo sida meesha hoos gudaheeda geliyo buu meeshaas wax ka fiirsadaa. daqiiqadu fiirsanayaa, dadka marka inta uu fiirsanayana labada dhinac usaa u dhuganaya, dhac u dhuganaya. Marka waxaan aniga aan awalba ku talagalay oo aan rabay arrintaas inaan dhalinyarta ka wacyigeliyo oo maskaxda dhalinyarta arrintaas ka bedelo baan waxaan xooga saaray bal wiilkiisa ula sheekaysto. maalmaha kamid markaas waxaan iri bal ii waran eedo. ninkii baan wareysanay. Anigu ma rabo dadka inaan filin ahaan wax u tuso, anigu ma rabo dadka inaan haddii ilaahay ku reeyay wax filina oo ummadii fasahaadinaya inaan dadka tuso ma rabo, ama filin wax la mid ah xataa gaalba ha ahaadee antaa soo qaato meesha soo saarto ay ma doonayo aniga. bas marka waxaan eedo bal ii waran nin dhalinyaro oo maasha Allah laxaad ilaahay siiyey baa tahay, waa qurux badan tahay, maxaa u guursan weyday? dhibaato ninkii wax aan ka naxay oo igula soo booday. wuxuu yidhi eedo, aan habar yar naag la guursadaa ma jirto. oo maxaa dhacay habar yar macaani? gabdho waa joogaan qurux badan Soomaaliya, waxaa jooga gabdho aad u qurux badan, gabdho sharaf badan, gabdho wax bartay, gabdho nooc kasta jooga. maxaa gabdho guryahooda jooga sharafaan baa uu yiri iga daa waxaas aad sheegaysid. gabar qurux badan oo gabar gurigeeda joogto oo maanta sharafan ma jirto. gabar walba ayadoo qaawan oo tumanaysa ayaad arkaysaa. markaasaan waxaan ku iri maandhow gacali gabdhaha caay walaalaha waaye, gabdhuhu ma wada tuntaan. haddaa aragtay gabdho xun waxaas hadda waaba ka tagu dhahay. waxaa igu sii qosol badan, waxaas hadda waaba dhaafay kulaha. hadda waxaa ma fiirsadaa aniga oo ka wanaagsan oo ayagoo madmadoobay jirkooda muuqdaan, kuwaanoo xuma wada madmadoow baa gudahoodii jirkooda muuqdaaye. imbeeshi hadday xataa ay taqasus yeelan lahaayeen oo naagaha gaalada ah oo iscadeeyo oo make upka is sameeyo xataa actionka sameynhaya yihiin. kuwaan actionna ma yaqaanin, ayagoo uun daba madoobaa saas waxaa arkaysaa oo hadalkor gabdhaha Soomaalida iyo ayaa arkaysaa ayagoo wax lagu rafaadinhayo ayaa arkaysaa. maahane waxaa hadda kasii wanaagsanba gabdhaha gaalada oo maxay ugu sii wanaagsan yahay? aniga waxaan ahay qof shay baar ah oo wax baarahayo oo ninkan sidaan u qaban lahaa oo hawshaas uga tirtiri lahaa ayaan rabaa inaan nabad aan iskula nahay. wariyaa xunta haddaan iraahdo ama wariyaa acuudu billaahi minash shaydaan rajiim, wariyaa waxaan yaa ku baraan dhaho, wariyaa ilaahay ka cabso aan dhaho oo wacdi u galo oo wuu iga hor imaanhayaa iga raali lahaad buu leeyahay, labada indhood buu igu soo taagahaya. bas marka waxaan haye sidii qof waxyaalahaas danaynaya waxaan ku dhahay haye gabdhaha gaalada waxay sameeyaan make up ay jirkooda ku sameeyaan, aad bay u cadeeyaan, aad bay u qurxiyaan, daawooyin badan bay mariyaan. markay actionka qabanhayaanna dhawaaqyo badan oo kala nuuc ah ay sameeyaan. waxaasaa lagu sameeyaa si rasmiyahna waa waxbay u qabtaan.
aniga qas hoos baan ka naxay, hoos baan acuudu billahi min ashaytaan rajiim ka dhahay. marka anaga marka hadda gabdhahaasaan sheekadooda aan haynaaye, waxaan hadda soomaalida kormadoobayaashaan warkooda maba haynaba. halkaasaa maraynaa, gabar la guursadan male. aniga waa naxay, waxaan eeda macaan, waxaan isiri markaan waanama u gashaa maya, waa u daayay. maalinkii halkaasaan ku joojiyey. maalinkii dambaan kusoo noqday, aan u wacay, waxaan dhegeyso horta suurtagal ma tahaa iri gabar haddaad caawa casriyada guursatid oo gabar qurux badan inta lagu keeno guursatid, suurtagal ma tahay inaad u tagtid oo gabadhaas aad sidaa rabtid ula dhaqantid. waa ifiirshay, ma gabadha wallaahi waa ula dhaqmi karaa, laakiin buu yidhi eedo intuu xoogaa dib hoos usoo jalleecay oo xoogaa ah isoo maaragtay xaggayga hadalkii milacsaday. habaryar waagaan yaraa horta waxaan ku bilaabay sheeko markaas ii gala. waagaan yaraa waxaan ku bilaabay markaas marka film ma fiirsanay ninkaanu, si sheekada caadi ah, meerkiisuna ma maqnayn, caadu marka ila fadhiyaa. waxaan iri eedo wuxuu yidhi horta anigu waxaan bilaabay yidhi anigoo baa haddii alkuunayahay nin yar ah oo 16 meelahaas jiraan bilaabay, ilaa maanta aan 20 aan ku jiro, aan sii dhaafi rabo. intaas telefoonkan waa daawanayay. eedo wuxuu yidhi markii hore oo yaryaanta aan horta aniga aan si fiican u bartay, waxaa suurtagal weyn maanta haddii gabar la ii keeno intaan hoos isku galano arrintii aan haddii gabar lagu keeno casriyadho adduunyaha maxaa dhihi lahayd. markaasuu wuxuu yidhi wallaahi eedo waxaa suurtagala xataa intuu haddana iscoliyey wuxuu yidhi wiil saaxiibkay ah, oo waxaa jira rag badanoo wiil saaxiibkay ah oo sidaanoo kaleeto sheekooyinkan hadda aniga aan ku sheekaysto ama wadaba ama aan arkayba baa wuxuu yidhi gabar baa la ii keenay, gabar baan guursaday, gabadhi ciddeeda ii doontay. markaan gabadhii guursaday baa eedo war baa iga raacay. gabadhii markaan guursaday wuxuu yidhi la ii keenay baan habeenkii gabadhii fiiriyey, waxa ila noqotay yidhi kuwii korka madmadoobaa gabadhii baan fiirin waayuu dhahay. cabaar baan gabadhii aan hawshii aan waan qof la ii keenay wuxuu yidhi saas dhahay. waa tagu dha meel xaggaan fadhiistay, waxaan raadiyey yidhi kuwii mag abka oo filmaanta ah ee dhawaaqahayo hadlayaan raadiyuu dha. marka eedo wallaahi wax kasta waa iska dhici kartaa, laakiin ilaahay ha naga soo hanuunsho uu marka hadalkay igu dhahay. markaasa waxaan ku yidhi meeqa camal oo dhallinyaraha hoosaa samaysa. wallaahi wuxuu yidhi haddaan kuu sheego maanta hadda sanadkan 100 gaarayaanu dhahay, 100 oo suurtagal ah. waa hoosaan usii sheekaysanay. markaasaan hadda gabdhihii macnaha waxay ku naceen odayaashii hore tawaag hore waa la nici jiray markay waayeelka noqdaan. gabdhihii maxay ku naceen hadda? gabdhihii ragga dhalinyarta waa furhayaan. marka wuxuu yidhi eedo anaa kuu sheega furiinka wuxuu la batay furiinka wuxuu la batay. wallaahi eedo furiinka wuxuu la batuu dhahay. wiilasha dhalinyartaa xataa gabdhaha uma tegi karaanu dhahay. sababtaa nuuca hadda aniga aan ku hadlay sambalkan gabadha marka la ii keeno waxay ila noqonaysaa yiri qof aan jirin, wax aan jirin bay ila noqonaysaa u dhahay. waxaan fiirinayaa yiri dhawaaqa kuwa dhawaaqaya. gabadhan waa gabar xishoonaysaa u dhahay. markii lagu keeno wax dhawaaqay wax hadal ma muujinayso, caadi waaye. anaga wuxuu eedo caadiga waa ka baxnay. dhalinyartaas noocaas caadi uga baxdana maba yaru yiri 100 gaarhayaan. marka waa yaabay aniga waa naxay. halkaa markay arki marsan waxaan bal ilaahay hadliisho. waxaan rabaa marka niilkaas calaa kulli xaal 4 jeer 5 jeer markaan la fariistay waxaan eedo macaanay bal xadkaas ka noqo ilaa 3 bilood teleefonkaagan iska dhaaf, iska tuur haddaad tuuri kartid, miyi aad halkaas aad. wallaahi cudurku waa cudur. aniga marka waxaan uga sheekeeyay cudurro badan, inaa maskaxda dadka madoobaato, inay maaragtay maskaxdiisa qofku aysan meel joogto ahayn. cudurro badan baa uga sheekeeyey, waxyaalo nooca badan baa uga sheekeeyey. inkastoo yidhi anaga naagta maba u tagnuu dhahay. anaga naag ma u tagnay teleefonkeenaan aan ku isticmaalnaa u dhahay. marka eedda anaga waa ka caafimaad qabnaa, laakiin wuxuu ii sheegay in cudurkaas kansal maskaxdiina ay qofkan ay noqonayso minadiisii iyo ragnimadiisiina ay eber noqonayso, baabi'ayso. marka waxaan marka iri eeday macaanay bal 3 bilood waxaan iska dhaaf, ka leexo, iska dhaaf. wiilkii waa runtii ilaahay baa arrintaa kusoo duway. dhowr bilood aan tashkiilinahayay arrintii si tartiiba uu yareeyey. waxaan is aragnay markaas aan is arkayno adiga 1 sano kabacdi ayaa wiilkii aan is aragnay. waa weydiiyey waxaan eedo macaan balka ka waran arrin xaalkii. wuxuu yidhi wallaahi eedo ilaahay khayr badan ha ku siiyo, talo badan baa isoo siisay, sharaf badan aad leedahay. waan tegey
gabadh baa la igu daray, gabadh baan guursaday, gabadhii markaan guursaday hawsheeda waa iga xumaatay, waa iska furay, mid kalaan guursaday. bas maantaasaan go-aan waxaan kusoo xasuustay inaa arrintan aysan soconaynin oo hawsha aysan soconaynin. eedo waa iska dhaafay, hadda qof baan qabaa, ayadiin baan ku ekeystay, taleefonkii weynaa farahan ka qaad, internetkii o dhan baan faraha ka qaado yiri, waa iska dhaafay yiri, hawsheedu meel fiican bay ii maraysaa, wuuna ii duceeyey. marka waxaan rabaa maantay dhalinyaro badan oo noocaasa hadday haysato oo dhibkaas haysato, bal xarunta la talinta dadka hala soo xiriireen insha allah haddii ilaah yidhaahdo. fursado badan baan u haynaa, maarkii waana badan baan u haynaa, qorshooyin badan baan u haynaa, mashruucyo badan oo maaragtay waxaan u haynaa qodobo badan ah insha allahu. waxaan aada u salaamahayaa dhalinyarta soomaaliyeed meel kastay joogaan, aan ku dhiirigelinayaa inay waxyaalaha noocaasa iska dhaafaan, ilaahayna ugu toobad keenaan, rabbigayna ugu noqdaan. aakhiriya adduun way dhaafinaysaa, mustaqbalkoodii way dhaafinaysaa, aakhirana waxay noqonaysaa ahlunaar bay noqonhayaan, adduunkana waxay noqonhayaan dad aajirin oo maskaxahaan u jirin bay noqonhayaan. waxaan leeyahay assalaamu calaykum, soo dhawaada dhammaan walaalahayga meel kasta joogtaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.